wafti balaadan uu hogaaminayo hogaamiye ku-xigeenka maamulka SSC Dr. Maxamed Cabdi Ismaaciil Shiine oo ka mid ahayeen labada gole ee maamulka SSC Khaatumo wasiirada iyo xildhibaanada saraakiisha ciidamada iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta booqday jiidaha hore waqooyiga gobolka Cayn halkaas oo kulamo kala soo qaateen ciidamada SSC Khaatumo ee ku jira difaaca har iyo habeenba isla markaana deegaankooda difaacaya hogaamiye ku-xigeenka SSC yaftiga hogaaminaya waxay dib ugu soo laabteen saldhigga ciidanka SSC Khaatumo ee gobolka Cayn ee soo joogto halkaas oo shalaan sharaf kaga qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka waxaana halkan ugu horeyntii ka hadlay taliyaha ciidanka aaga SSC Khaatumo ee gobolka Cayn Farxaan Maxamuud Jaamac Dhagjar oo faahfaahin mudane madaxweyne ciidamadan aad arkaysaa oo halgamayaashii waa qalasyadii waa raggii dalka xoreeyay iminkana waxay u taagan yihiin dadkooda iyo dalkooda inay xoreeyaan cayayaanka iyo waxa buuqaya ee hadlaya inay dalka ka safeeyaan bay u taagan yihiin waa kugu soo dhaweynaynaa dhammaantiin gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawow madaxweyne iyo waftida aad hogaaminayso gobolkaagii iyo ciidamadaadii iyo dadkaagii oo ku jeceliya shacabkaagii waa ku soo dhaweynaynaa aad iyo aad baad mahadsantahay madaxda iyo mas'uuliyiinta soo booqatay taliska ciidanka aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada taliska ciidanka aaga gobolka Cayn waxayna hortaagan ciidamadii qalabka sida ee difaaca deegaanka ee naftooda u huray bini'aadamku wax ka qaalisan ma jiro naftiisa u bixiyay deegaankoodii una halgamay ilaa iyo haddana hortaagan cadawga Soomaali diidka ah ee ku soo duulay deegaanadooda inay ka difaacaan waxaan uga mahad celinayaa ciidamada halganka dheer ee hore ay u soo galeen iminkana ay ugu jiraan deegaankooda waxaan leenahay reer Sool joogto aad iyo aad baad u mahadsantihiin shaqo fiican baad qabateen soo dhaweyn wacan baad samayseen shalay waxay inoo ahayd maalin aad u qiimo badan waa maalintii aynu ka guulaysanay ee aynu ka saarnay deegaamadeenna maamulkii Soomaali diidka ahaa maalin aad u qiimo badan bay inoo ahayd iminkana waynu ognahay oo meelahaasay muska ku soo jiraan marba fooda soo saaraya waxaan leenahay deegaanka iyagu waa nabad annagu duulaan cidna kuma nihin laakiin cidiina ku soo duusha way iska celinayna xildhibaanada maamulka gobolka taliska ciidanka gobolka Cayn oo runtii si sharaf iyo meeqaam sare noogu soo dhaweeyay taliska guud ee gobolka Cayn oo ugu horeeya taliyaha aagan iyo wax ku xigeenadiisu aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kaloo mahadnaqayaa magaalada Sool joogto oo si fiican iyadana nalagu soo dhaweeyay oo dad halgan u diyaara runtii aan ku aragnay inta kadib waxaan rabaa inaan u mahadnaqo qaybtan ciidanka ka mid ah ee taliska aan ugu nimi iyo kuwa kale dhufayska ku jiraba aad iyo aad inay u mahadsan yihiin sida wanaagsan ee sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen saraakiisha sida sharafta badan ee qiimaha badan halkan noogu soo dhaweysay ciidamada iyaguna heeganka ah ee sida sharafta badan noo soo dhaweeyay runtii aniga maanta dareen gaar ah arintani ii tahay ee reer soo joogto qaabka aad noo soo dhaweyseen iyo sida isu diyaariseen waa idinka mahad celinaynaa runtii hawlo badan iyo waqti badan baad ku soo jirteen difaaca dalka iyo deegaankiina haddana waxaa loo baahan yahay inaad sii laban laabtaan oo sida quruxda badan ee dalka iyo deegaankaba aad u difaacaysaan ee heeganka ku tihiin har iyo habeenba inaad heegan ugu ahaataan waxaan dardaarmayaa ama taliska guud ha noqoto ama taliskan Sool joogto ha noqoto sida aad u wada shaqaynaysaan ee quruxda badan ee agaasiman ee kala dambeynta leh inaad sii xoojisaan soo noqdo gobolka Cayn Soomaaliland ama gooni goosatada gardaran gooja cadda kumay jabin laakiin hore u jabtay xilli hore jab gaadhay dagaalkii Kalshaale
iyo dagaaladii dambe isdaba joog ahaa ee ku dhacayay intaba waxay naafeenayeen gooni goosatada ilaa markii dambe la israaciyay oo 8 bilood ugu dambeysay ama 9 bilood ugu dambeysay la israaciyay dagaalkii Kalshaale raggii galay waa fadhiyaan gaadiidkii laga helay barigaana waa ka in hor yaalla iyo hubkii laga helay raggii uunba iyo rag kale oo dhashay oo dib ka dhashay ama ka hana qaaday uunba gooja cadana ugu tagay arintaasi waxay marag u tahay riyada ay isugu sheekeeyeen inaysan marnaba suuro galaynin aakhirkana ay dantooda garan doonaan innagana waxaa laynaga rabaa sida xilkasnimada leh ciidanku u gudanaya waajibkiisa ee u kala dambaynayo in la sii wado haddii hawlgal dhacayana tala lagu galayaa haddii la iska daynayna tala lagu daynayaa laakiin haddii amar kala qaadashadu yaraato wax badan baa inaga xumaan kara marka way idinka mahad celinayna muddada sanadka ah habkii aad u shaqaynayseen weliba jiidani warkeeda waa la hayaa mas'uuliyiinta sare waa hayaan qaabka isku kalsoonida leh ee ay uga wada hawlgalayaan iyo qaabka ay amniga magaalada lafteeda uga qayb qaadanayaan haddaba sanadka bacdi waxaa laynaga rabaa wax isbeddel inuu dhaco oo ku saabsan ciidanka qaybihiisa noocyadiisa kala duwan arrintaa waa ka tashanaynaa waxbaan iska weydiinaynaa annaguna meel uma soconnaba waa idila joognaa haddii alla idmo gobolkaanu fadhiisanaynaa haddii alla ka dhigo waxa ugu horreeya number 1 ana waa ciidankaas in laga shaqeeyo